أنا أضيع هالسنة وحبرتي بأتأجى مقرر كريم هذا مجا واقرا موبايلك أنا كوسيف جريست وريبوسيف جري بعديه جري هو محمد نور يبوسيف جري عنديه جري طيبان ونهي أنا وطيبان ونهي وبحيد Somalia, where hope collides with hardship. Just outside Mogadishu, in a place called Kahda, lies a history seldom told, but one the world needs to hear. anagu arday baanu nahay akhlaaq baan daris lanahay ayaamana quraanka iyo qolkii rabbi baan sidnaa In Kahda, over 600 children have no access to basic education. Their parents can't afford school and no government system supports them. But hope lives on. They are university students, some barely surviving themselves. Yet every day they show up to teach, without pay, without resource. Their mission is to give these children a future. akhlaaq baan daris lanahay ayaamana quraanka iyo qolkii rabbi baan sidnaa. At the heart of Abdimahat Mohamed Abduhab, a student turned leader, he told us, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعي هو عبدالمال محمد عبدالوهاب waxaa kamid ahay tiimka waxa dalka waxaan kamid ahay aasaasayaashii soo bilaabay barnaamijkan waxa dalka maalmaha khamiista jimcadeed ummadda inta lagu baro waxa dalka waxaa la yiraahdaa dadka danyarta masaakiinta aan la awoodin akhris quraanka afka Soomaaliga wacyigelinta inta ugu horeysa salaada deeska xisaabta in lagu dhiirigeliyo waxa la isku yiraahdaa asaaska waxbarashada asaaskeeda yani waxa laga soo maray dhibaatooyin kala duwan bilawgeedu wuxuu ahaa bilaw aad u adag waxa la soo asaasay 2003 bishii koowaad asaaskeeda marka loo fiiriyo iyo habka loo bilaabay waxay mid aad u adag aad mataqaana u adag marka waxa ku soo bilaabnay meel hoose waxaan barnaamijka intaanan asaasin ka hor waxaan ka soo shaqeyn jirnay meel cabitaan ah aan aniga saaxiibkayga Fanax asana wuxuu ku shaqeyn jiray galabta anina habeenkii lacagtaas la aruuriyo aan tiimkaas aaskiisa lagu soo bilaabay wax walbo ragtashada ma tabar yara ka bacdi barnaamijkaas waxa uu tagnay jaamacadeena sidii baa barnaamijkan qabaqabadeeda soo bilaabnay waxa ku bilaabnay 2 qofood maanta aad u joogtay waxa joognaa 50 qofood maxaa yeelay dadaal walba natiijo walba dadaal walba natiijo leedahay alxamdulillah kontankaas qofood oo macallimiinta maanta joogto waxa lagu soo bilaabay 2 qofood 13 jaamacadood kala duwan kala keen muddada aan wadnay 2 sano 7 bilood ma jirin wax social media aan furannay ama aan ku soo biirnay alla dadkiisa u qabanay oo isxilqaan inaga ahayd dan guud ah maxaa yeelay intuu maanku gaajaysan yahay guuli waa weli kulliba hawl walba oo la bilaabay oo dan guud ah waxa la wada ogsoon yahay inay leedahay caqabadooyin fara badan oo kala duwan kuwa ahata ma laba ahaato laakiin annagu waxaan leenahay calooshan waa qarsanayna laakiin haddii cilmi ahaan loo fiiriyo aqal ahaan loo fiirine waa la dareemi karaa dhalinyaro aanan haysanin fan dhaqaale maamul markaas yani dhiirigeliya ku bixiya dhaqaale uusan jirin iyagu isxilqaameen oo dal jecel iyo dad jecel iyo wadaniyad ay ku qabsadeen qorshaha waxa bilaabnay maalmaha khamiista jimcadeed inaan wax u dhigno 5 maalin aniga arday aan nahay waxa baranaa oo waxa aadna jaamacado maalmaha noo soo haray oo yani khamiista jimcadeed meeshan fadhigo dirir qabiil iyo dood iyo ciyaar aan ka hadlaynay waxaan ku aansanay inaan bulshadeena qaasatan dadka masaakiinta inaan u adeegno qaab walba aan u adeegi karno si walba aan u gaarsiin karno. At night, they prepare lessons, meet elders and guide parents. One father told us, meeshan ano numberka hadda aan save gareysan karin macallimiinta walaalihiina halkaan u imaadeen waa ka faa'iideysanay waxbarasho fiican baa ka faa'iideysanay 2 sano asal jirnay marka adoo oday haasaan ahaa wax bartay ba ta'ja ma qoran karin haddana magacayga waa qoraa
موبايلك أنا أكو سيف قريست وريقو سيف قري بديه جري هو محمد نور يقو سيف قري أنا جري هذا محمد نور أنا قرطه marka aad iyo aad baa ugu faa'iidnay hadaba ayaal baa ii dhigtaan marka aad iyo aad bay u mahadsanyihiin dadkan walaalahay juud fiicana meesha geliyeen 2 sano aan isdaba joognaa kaamkan geedka hoostiisa ku dhaga jiraano dhulkan fidhiisa jira dhulka kursada ma ku fidhiisa jirin. Some parents have started learning too, inspired by their children. أنا علمي waa ku jiraan ani ilmaha waa isla dhiganaa alxamdulillah mara baadi aad waa soo laabtay markaan soo laabtay hadan waa aad iskuulka inta jirta liima dhahin ملي ويدين سيدي أدين 10 كيك بلاب حدا حسن حسين واقورو كرا محمد إبراهيم واقورو كرا نمبر كي يسوع هبلو واقورو كرا مروري في سيدي اللي شيء جري ما بكشن كاش كجعلاي هذا كاش كوان عبنا في سيدا جال مروري ما كسجرين سيدي لو ترى يسكلا نمبرنا مقورو جرين الحمد لله لعكن لي مدهن بوق سوقد لي مدهن قلن كانس لي مدهن قلن قرهي أو وحلو قرآن يوكا يسيناين. These children have learned how to read, write and count. For money, it was their first time writing their names. They dream big. أنا أحمد معلم إبراهيم وعك سعودة سكولك وحدلك وحا أمهات نقا معلمين توحن صبرين وحاسوجين دونا كلمات حديثة عن أبي هريرة أيا لور حديث كان رضي الله عنه على قرآن القضاء قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام وحوري وجبت النار نار وحال ورجي بالشهوات وحيوان نفط جعشر وجبت الجنة جنة وحال ورجي في المكار وحيوان نفط للسنسة عن أبي هريرة أيا لور حديث كان رضي الله عنه على قرآن القضاء قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام وحوري الدنيا سجن المؤمن الدنيا سجن المؤمن مؤمن كأي حبس كتاي والجنة الكافر قال ذن الجنة أي أتاي. This is a history born in a forgetting camp, but its message belongs to the world. They need books, classrooms and a chance, and you can be the change.